السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ما بس إنه فرصة زيتنا بيتك وريدان لو شيء إنه فرصة زيتنا جاك ما بعندها سين قد بيفضل عليه هو الجلد قدر هران جودهان دلكا ساعته هو الجلد هو أنا قدر هران جوالد دلكا هو الجلد قدام بيا ومعلنتي شلي هايتي منه قدر هراي دقيمة أو أنا لك جيس دي deegaanka eelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe maalintii shalay haytay howlgalka mebas kaaladayay saaxiibada caalamka meba meelasay duqeymo waan iyo ku jeysadeenaa kooxaha qabarjinta al-shabaab waan iyo ka sugnaayeen deegaanka eelbaraf kooxaha qabarjinta al-shabaab shalay ilaa xalay mebayo kuusadaayena miidadyo iyo dhaawacyajo waan iyo kuusadaayen saasaato mayna ilaahay subxaana watacaala ay raabtan suurtageliyey geesiyaasha hoog dalka ciidamada danab iyo ciidamada gorgor iyo han deegaanka mayna waan hiraabtay hora waan iyo weerar waan iyo kagaadana deegaanka eelbaraf saasaato deegaanka eelbaraf oo ee gobolka shabeellada dhexe mayba hiraabtan waan la wareegay ciidamada hoog dalka waan iyo galantay waan iyo ka hayaan saasaato ciidamada hoog dalka mayna ilaahay subxaana watacaala suurtageliyey in iyo waan deegaanka eelbaraf iyo galantay ka hayaan maalintii shalay haytay shar oo mayba iyo weeldadaayeen taraakiisha ciidamada ankoore taliyaha ciidamada hoog dalka jarnaal Usman Yuusuf Raage mayna soo ballan qaaday in waana gobolada dalka howlgalada ku dareeran in waana sidii lama jibaar lahaaya taliyaha mayba soo sheegay in waana guud ahaan dalka in howlgalada ku dareeran in waana sidii lama jibaar sidii lagu horay lahaay guud ahaan dalka in kala gobolka Bakool mayna waana ku dareeray dhaqdhaqaaqya ciidan oo waana la fadahaya in kooxaha qabarjinta al-shabaab ku saara gobolka Bakool haddaba mayna weerar ku dareera gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe waan iyo dareemayna jabweyn oo waana ku deeraya galanta ciidamada hoog dalka in waana meelasay sidii lagu qeybtar lahaay guud ahaan dalka saacadun waana tusin la hadlaaya deegaanka eelbaraf may waana galanta waana ka haya ciidamada hoog dalka iyo han deegaanka iyo galantiyo ka hayaan saasaato maalmo mayna ka sugnaayay kooxaha qabarjinta al-shabaab maalintii shalay mayba ciidamada saaxiibada caalamka dagaal dhulkii irkiwan iyo galana in kooxaha qabarjinta al-shabaab miisad iyo dhaawacyo meelasay oo ku hadlayaan ciidamada hoog dalka han ciidamada danab iyo gorgor iyo han deegaanka mayba iyo hiraabtan iyo weerarkaas iyo gaadana meelasay kooxaha qabarjinta al-shabaab walaqoodi nolola iyo mayba dhaawacyo iyo mayba miisadka meelasay ku korwaran mayna waana galanta ka haya ciidamada hoog dalka mayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud mayna usina ballan qaaday in waana kooxaha qabarjinta al-shabaab sidii lagu saaro lahaay guud ahaan dalka walow mayna maartaasina ballan qaaday taliyaha ciidamada hoog dalka jarnaal Usman Yuusuf Raage mayna soo ballan qaaday in waana lagu saaro guud ahaan dalka walaayaha qorara oo wararka howlgalada ku dareeran guud ahaan degmooyinka ku dareeran mayna siin ku fiirsan doontana beedka wariyadan loo sheegay siin ku fiirsan doontaan